الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين مدحوينها دولة بودلاند مدحوينة كحجينك دولة بودلاند قدومي كحجينك كواد قلها وكيلة دولة بودلاند يقول قدومي كحجينك اللباد قلها وكيلة دولة بودلاند قلها وكيلة دولة بودلاند قلياشا أقل كسرة يا أقل كهوسة يا قلها وزيرة دولة فدرال كالصوماليا مدحوينياشي هراء بودلاند قدومياشي هراء قلها وكيلة دولة بودلاند السمدة عقاشة سياسيين تا iyo marti sharafta beesha caalamka ka soo qaybgalayaasha kale ururada bulshada iyo haweenka iyo dhammaan ergooyinka ka yimid sagaalka gobol ee Puntland baada saxaafada dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane madaxweyne mudanayaal waxaan hambaliyeynayaa shirka wada tashiga dawladda Puntland ee maanta ka furmay magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland waxaan u mahadnaqayaa oo bogaadinayaa guddigii ka soo shaqeeyay shirweynaha kan ee uu gudoomiye u ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee dawladda Puntland iyo xubnihii kale ee kala soo shaqeeyo dhan oo shirkan sida wanaagsan u soo agaasimay guud ahaan shacabweynaha reer Puntland anoo ku hadlaya afka golaha wakiilada dawladda Puntland waxaan uga hambaleynayaa maalintan taariikhiga ay isugu yimaadeen in 12 sano kadib inay isugu yimaadaan shir wada tashi kaas oo ujeedkiisu yahay 12 sano ka hor halkee baa isugu keen dambeysay 12 sano ka hor iyo badh waliba 8 bilood halkee isugu keen dambeysay maxaa inoo kala dambeeyay halkeesuna baan joognay shirka runtii ajantiisa ayaamahan oo dhan waa la isweydiinayay laakiin aad baan ugu mahadnaqayaa ugu hambaleynayaa haddii wax rag suugaanyahan idinku jiraan kooxda Mahuraan baan iyo maansadii shiinleyda ahayd oo runtii furfuraysay ba shirka iyo ujeedadiisa iyo waxa laga rabo iyo meesha aan u socono horta intaas un bay ahayd oo lagu soo koobay anigu runtii nuxurkii ujeedada shirka iyo magac afkii dawladda oo dhan madaxweynaha ayaa ku hadlay runtii khudbadiisa ku jeediyay aragtidii dawladda iyo shirku wuxuu ku saabsan yahay laakiin waxaan isleeyahay dhowr qodob oo ii muuqday uun baan ku kabayaa maanta reer Puntland fursad dahabi baa dawladdu idin siisay inaan mar kale wax isweydiino haddii wax inaga khaldameen wixii inaga khaldan inaan wax iska weydiino sidaan sixi lahayn haddii meel wanaagsan wax inoo marayaan anigu rajaynayo 12 sano in tallaabo la qaadayay inta ka dhiman inaynu bogaadino waxaynu qabanay wixii ka dhiman anna aynu ku darno haddii ay galdaloolayaal jiraan innagaan cabanayn wax isla toosinayna runtii isla hanaanino talgaliyada koowaad markaa waxay tahay inaan ku dadaalno inaan shirka hareeraha qabanno aqoonyahan siyaasiyiin golayaasha dawladda iyo isimada iyo madaxda dawladaba waqtigiisa ku habeen oo haysto la siiyo waxaynu ku midaysanahay bulshada reer Puntland anfaca bulshada Soomaaliyeedna aanay ka sasin ee waxtar u leh inuu shirkaas ku baxo inaan ku dadaalno arrimahan ka hadlaya waxay yihiin
waxaan rabaa in aan ku baraarujiyo madaxda iyo shacabka reer Puntland inaan wax iska weydiino Soomaaliyada cusub iyo reer Puntland meesha ay ka gali doonaan iyo kaalinta ay ku leeyihiin isbedelada dalka ka socda ee Soomaaliyada cusub iyo meesha aan u dhaqaaqayno sidoo kale Soomaaliyada cusub waxay qaadatay nidaam federaal ah oo aan ku dib iyo dheef babeelnay nidaamkaasi laftigiisu in wax la isku weydiiyo meesha ugu dambeeyay tacab badan baan gelinay ilaa ay haddana kama warqabno maalin walba shuruuc baa la ansixinayaa hadda waxaan ogahay in dastuurkii federaalka Soomaaliya garowe la dhex wareegayo Ragustaan oo shaqo iskaga socoto baartina kama inihiin waxbana kama aanan ogeyn in runtii waxyaabahaas oo dhan wax la iska weydiiyo talada miiska la saaro sideedabana waxaan ka hadlaynaa waa qodob dastuuri ah qodobka afraad ee dastuurka dawladda Puntland ayaa si dhaba wax uu qeexayaa inta laga helayo dastuur Soomaaliyeed oo aftis Soomaaliyeed lagu ansixiyay in ay dawladda Puntland awood dawladeed oo madax bannaan yeelanayso isla dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya qodobkiisa 142 ayaa inta aan sheegay la raray oo loo geliyay oo labada qodob sidaas ay isku waafaqayaan haddaba markay saa tahay haddii aanay jirin heshiis ay xukuumaduhu wada galeen oo labada madaxweyne intay wada shawreen iyo dawladdeenu la kala sixdo meel la iska dhigay maxaa la isku hayaa oo leeyahay Puntland iyo federaalka way sayaan ma dastuurka la raaco sideeda loo daayo Puntlandna lagu ixtiraamo inta la gaarayo heshiis lagu dhan yahay iyo dastuur Soomaaliyeed oo la ansixiyay oo afti dadweyne lagu ansixiyay inta yada iyo dastuurka iyaga walaalayaal waxba naga xumaan inaan noogu hambaleysan inaan hor socno taas taaweeye doorashooyinka 2022 kan insha Allah waxaan rajayn doonaa waxaanu isla ognahay oo dawladda Puntland iyo dawladaha kale xubnaha ka dawladda Soomaaliya federaalka Soomaaliyana ay ku qanacsan yihiin in la isaga imaan doono oo aanay bahashu noqon doonin in toocsi iyo nin sidoo wax rabo in wax lagu wado insha Allah ibnaahi kariim siyaasaddu sideedaba haddii la fasiro oo leedahay maxay tahay siyaasaddu waa isfahan wada shaqayn iyo wax la isla ogol yahay ee maaha khiyaamo iyo baayo hoog iyo tuugo waxa aan ku soo xidhayaa waxa jirtay wada hadallo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku baaqday oo ay leedahay waxaan la galaynaa maamulka Somaliland wada hadalladaas iyo ergooyinka ay dawladda federaalku samaysatayba waxaan u arkaa inaanay sax ahayn xaraanayn waana sababaynayaa Soomaaliya hadda halka lagu wado waxa la rabaa oo wada hadalladaasi ay rabaan in loo dhigo in koonfur iyo waqooyi wax la wada qaybsado Puntland xaggay markaa ku dambeynaysaa waa inay ka baxdaa weeye marka khariidada taana yeelimayno talabaad anigu waxaan ka mid ahay mas'uuliyiinta sare ee dawladda Puntland ka matala gobolada waqooyiga Puntland waa Sool Sanaag iyo Cayn ma yeeli doono wada hadallo aan dawladda Puntland lead garaynayn annaguna aan qayb ka ahayn oo dad inta meel la isaga soo urursado oo dad inta meel la isaga soo urursado la yiraahdo waa matashaan waxay yiraahdeen niman ka soo jeeda goboladaas baa xamar laga qoray xamar laga ma qori karo annagu Puntland baan nahay
dadkayagii dhacdayadii duunyadayadii noloshayadii intani baa halkan bay taal halkana wax laga weydiinayaa halkana talada ka godaa ninkii aan taan ugula shaqaynayn haddii annaguna la shaqayn mayno shacabka reer Puntland waxaan aan ku baraarujinayaa 9 gobolba walaalayaal 12 sano iyo 8 bilood bayn maanta jirnaa dal iyo dawlad baynu leenahay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo gudoomiye baarlamaan iyo golayaashii dawladdeenu leenahay oo dhisanay dawlad madax bannaan oo shaqaysa oo dastuurka qodobka afraad inoo ogol yahay inta Soomaali federal heshiiyay oo dastuur lagu sheeyman ayaynu nahay taa iimaansada oo ku shaqeeya waxaan rajaynayaa wixii siyaasadda iyo hagidda dalka waxa iska leh madaxweynaha annaguna xeer dejintii baan nahay oo shuruucda iyo inaan wadada toosin ku toosino dawladda iyo talooyinka baan leenahay laakiin ogaada annagu haddaan reer Puntland nahay shacabkayaga dalkayaga xuduudahayaga iyo dhulkayaga cidna wax ka weydiin mayno cidna doon fadhiisan mayno Puntland iyada taladeeda leh Puntland ha noolaato idinkuna ha noolaada waana maasantiin waa mahadsan